halkan aan ku suganahay waa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Dhinacayga bidix waxaa ka muuqda dhismayaal aad u qurux badan, sidoo kale dhinacayga bidigna waxaa ka muuqda dhismayaal aad u qurux badan. Muqdisho taariikh ayay leedahay, dad badan aysan ogeyn iyo waliba sirta ku duugan. ila soco barnaamijkan idinka soo diyaariyo. fadede injirina jale makoito Somali janalin jeda ujilib maseda shalambo jitna imarayo jija jawaba la kofade Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxay ku taallaa galbeedka badweynta Hindiya. waa magaalo qurux badan oo indhuhu soo jiidanayaan oo ay badweynta Hindiya ku wareegsan tahay saddex jiho. waxaa magaalada Muqdisho dhidi badan loo aasay sida taariikhdu xusayso waqti aad u fog oo ay taariikhyahanadu isku khilaafeen in magaalada la aasaasay qarnigii labaad ama kii saddexaad ee taariikhda miilaadiga. Muqdisho waxay ahaan jirtay xarun ganacsi oo marin kala qaybiya Hindiya iyo Yurub inta aan la qodin kanaalka Suez iyo jasiiradda Carabta ee xeebta bariga Afrika. magaalada Muqdisho waxay ka koobnaan jirtay sida warbixinuhu sheegayaan 6 xaafadood ama tuulo oo ay deganaayeen qabaa'il. xaafad kasta waxaa xukumi jiray sheekh qaabka markaasi federaalka ah oo loo maamuli jiray. dhammaan xaafadahaasi looga tashan jiray arrimaha magaalada. qarniga afraad ee miilaadiga magaalada Muqdisho waxay isku bedeshay nidaam ama maamul u eg Sandaladland. Muqdisho waxaa kaloo taariikhyahanadu isku khilaafsan yihiin magaca Muqdisho asal ahaan meesha uu ka soo jeedo. waxaana la sheegay in magaalada markeedii hore la oran jiray Xamar iyo magacyo kale oo la mid ah sida Xamar Jajab, Xamar Cadde. waxaa macquul ah in magacyadaasi dhammaan magaaladaasi loogu yeeri jiray waqtiyo kala duwan oo ay magaaladu qadiimi ahayd ayna soo martay sida siyaasadda. qaar ka mid ah taariikhyahanada waxa ay caddeeyeen in magaca Xamar uu ugu horreeyay, laakiin hadda waxaa aad la isugu khilaafay micnaha Xamar oo ah magaca bulshadu aad u taqaano, weliba dhanka sugaanta iyo weliba mahmaahyada Soomaalida ilaa iyo waqtigan aan ku jirno adeegsadaan magaca Xamar. micnaha Xamar carabi ahaan waa alxamra. qaar kale oo magacaasi waxay ku macneeyeen oo sheegeen inay ka timi kelmadda ximyar oo ahayd dowlad islaamka ka hor xukumi jirtay Yemen. dowladdaasi waxay gacanta ku haystay ganacsiga xeebaha bariga Afrika oo ka mid ahayd magaalada Muqdisho. magacaabidda magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in magacaasi asal ahaan uu yimid isla markaana uu ka yimid kelmadda maqsad shaah oo loola jeedo kursiga boqorka ama micnaha kale meesha ku jira. waa meesha ugu wanaagsan ee boqor ku fadhiisto ama xarun ka dhigto. sida la sheegay Muqdisho waxaa qarnigii 6aad ee hijriyada xukumi jiray Faransiyiin. marka Soomaalida way kari waayeen ku dhawaaqidda maqsad shaah waxayna u bedeleen magaca hadda ah ee Muqdisho. kelmadda waa laba erey oo kala markaasi duwan oo ereyga maqsad waa carabi, ereyga labaad shaah waa farisi oo loola jeedo boqor. marka taas ma loo macnayn karo in magaaladaasi asaaskeedii dadka markaasi farisiyiintu ay qayb ku lahaayeen, maxaa yeelay ereyga farisiga aad ayaa looga isticmaali jiray magaalooyinka Carabta iyo xeebaha Soomaaliya waqti aad u fog. waxayna badi taariikhyahanadu qireen in magaalada Muqdisho uu markaasi soo gaaray islaamku inta ay magaaladaasi soo shaacbixin. waxayna soo shaacbaxday amaba ay soo baxday markii dadka magaalada dhammaan diinta islaamka ay wada galeen oo ay noqdeen dad aad looga yaqaano gobolka, taasoo keentay in dhammaan xeebaha Afrikada bari oo ka kooban Sanjibaar, Soomaaliya, Jabuuti loogu yeedho
muqdisho magaalada muqdisho markii ay dadkeedii islaamka galeen markaas oo ahayd qarnigii koowaad ee hijriga sida taariikhuhu sheegayaan waxa ayna noqotay magaalada muqdisho markaasi derbigii adkaa ee difaacay islaamka afrika qaar ka mida taariikhyahanadu waxa ay sheegeen in dadka asal ahaan u dhashay magaalada muqdisho ay ahaayeen dad ay ku badan yihiin culimada iyo ragga diinta lagu yaqaano kuwaasoo horseed u ahaa dhaqdhaqaaqyadii fididka diinta islaamka ama fidinta diinta islaamka ee Soomaaliya isla markaana door weyn ka soo qaatay in ay diinta islaamka ku fido bariga bartamaha iyo koonfurta Afrika dadkaasi firkoodii markaasi ilaa iyo waqtigaas waxay ku nool yihiin magaalada muqdisho ee qadiimiga badankoodu asaasidii markaasi magaalada muqdisho taariikhyahanadu waxa ay isku khilaafsan yihiin waqtiga la asaasay magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya qaar ka mid ah taariikhyahanada Yurub ayaa sheegay in magaalada muqdisho la asaasay qarnigii 7aad ama 8aad ee miilaadiga laakiin kuwa badan ayaa waxa ay sheegeen in wax taasi ka khilaafsan kitaabka taariikhiga ah magaalada Pata ee xeebta Afrikada bari ee lagu qoray afka Sawaaxiliga ayaa waxa ku qoran qofkii ugu horeeyay ee magaalooyinka xeebaha bariga Afrika asaasi u ahaa khaliifkii Abdulmalik ibn Marwan sanadku markuu ahaa 77 hijriga kadib markuu maqlay wararka magaalooyinkaasi wuxuu markaasi maqlay ama uu rajeynayay inuu halkaasi ka dhiso boqortooyo cusub Abdulmalik ibn Marwan wuxuu halkaasi u soo diray rag Suuriyiin ah kuwaasoo ah dadkii dhisay magaalooyinka Pata, Malindi, Zanzibar iyo Lamu taariikhyahanada Talyaani ah ayaa waxa ay sheegeen iyaguna in ay magaalada muqdisho ahaan jirtay islaamka ka hor magaalo aad u facweyn markii islaamku ku faafay magaalada muqdisho waxay noqotay meel ay u soo haajiraan dadka carabta ahaa kuwaas oo halkaasi ka abuuray ganacsi iyaguna ay ahaayeen waqtigaasi dad faqiira isla markaana iyo waliba fidinta diinta islaamka ilaa ay magaaladaasi ka noqoto minaaradii diinta ee Afrika dadka fikirkaasi ilaa waqtigan xaadirka waxay wali ku nool yihiin meelo badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya iyo xeebaha Banaadir oo dhan nin magaciisa loo dhihi jiray Ismaaciil ibn Umar bin Maxamed ninkaas wuxuu ka soo jeeday reer Binu Arfan wuxuu magaalada muqdisho yimid sanadku markuu ahaa 149 hijriya sida taariikhuhu ay sheegayaan magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxay ku caan baxday masaajido waaweyn oo taariikh fog ku leh caalamka iyo guud ahaan dalka islaamka oo ahaan jiray goobihii cilmiga loo soo doonan jiray lagana baran jiray culuumta kala duwan waxaana looga imaan jiray geeska Afrika oo dhan waxaa masaajidadaasi ay caan ku baxday xalqadda tafsiirka xadiiska iyo fiqiga maamulkii muqdisho ka jiray waxay ku tartami jireen dhisidda masaajidada iyo goobaha lagu barto diinta islaamka muqdisho waxaa ka jiray masaajido fara badan oo caan ah sida masaajidka Xamarweyne waxaana si aad la isugu waafaqsan yahay in uu yahay masaajidka ugu faca weyn ee magaalada muqdisho waxaa masaajidkaasi la dhisay 630 hijriga masaajidku wuxuu leeyahay 80 tiir masjidka Arbaco Rukun oo la dhisay bartamihii qarnigii 7aad ee hijriga masjidka Faqruddin oo la dhisay 667 hijriga masjidkan wuxuu ku caan baxay oo ay derbiyadiisu yihiin markaasi nashqada kala duwan oo aad u qurux badan oo ay ka samaysan ruqaan masjidka markaasi Axnaafta oo la dhisay qarnigii 7aad ee hijriga markii gumaysigii Talyaanigu dalka qabsaday way dumiyeen masjidkaasi waxayna ka dul dhiseen baar ay u bixiyeen baar Savoy dowladihii iyo maamuladii muqdisho ka talin jiray waxaa magaalada muqdisho soo xukumi jiray dowlado iyo sandalado magaaladaasi qaarkood waxa ay sameeyeen maamuladaasi dadkii ugu horeeyay carabta ahaa ee halkaasi soo dega qaar kale waxaa ka mid ah qayb ka tirsan khilaafadii islaamka ee waqtigaasi jirtay iyo maamulo ay samaysteen qabaa'ilo Soomaaliyeed iyo kuwii isticmaalka dowladahaasi waxaa ka mid ahaa dowladii Himyar waqti Ascad ibn Karab oo ka mid ahaa boqoradii ka talin jiray Yaman qarnigii afraad ee miilaadiga dowladan waxa ay kala soo xukuntay magaalooyinka Marka iyo Baraawe dowladii Umayyiinta
waqtigii cabdimaalig ibnu marwaan. dowladda xalawaan oo muqdisho ka talinaysay qarnigii bilowgii iyo qarnigii 6aad ee hijriga waxaa magaalada xukumayay maxamed shaah oo ka tirsan maamulka xalawaan ee ciraaq. dowladdii suusaan oo bartamihii qarnigii 6aad ee hijriga muqdisho xukumayay. dowladdii shiirasiyiinta oo qarnigii 7aad ee hijriga dowladdaasi waxay ku caanbaxday dhisidda masaajidadii waaweyn ee leh qaab farisi. dowladdii faqrudiin oo aasaasay markaasi suldaan abubakar faraqudiin qarnigii 13aad ee miilaadiga kadib markii uu ku guulaystay inuu soo afjaro khilaaf ka dhexeeyey qabaa'ilka muqdisho degana. dowladdii Boortaqiiska oo markaasi iyagu magaalada muqdisho xukumaya waqti gaaban sanadkii 1502 miilaadiga. Boortaqiisku waxay dadka muqdisho degana kala kulmeen iska caabin xoogan oo ay ku diideen maamulkooda. dowladda mudafar oo muqdisho xukumaya bilowgii qarnigii 6aad ee miilaadiga. dowladdii yacquub oo ahayd sandaladii ay samaysteen dad Soomaali qabaa'ilka markaasi magaalada muqdisho degan. sandaladaas dowladdu waxa uu ahaa hogaaminayna suldaan xaaji cumar hilowle allaha u naxariiste. dowladdii cumaan waxaa waqtigii suldaan barqash ee ahaa markaasi suldaankii Sinjibaar oo xukumayay xeebta bariga Afrika bartamihii qarnigii 18aad ee miilaadiga. markaas waxay magaalada muqdisho siyaasad ahaan raacsanayd suldaanadii markaasi reer cumaan ee joogay Sinjibaar. dowladdii Talyaaniga oo magaalada muqdisho qabsatay 1892 miilaadiga kadib markii heshiis la gashay suldaankii reer cumaan ee muqdisho ka talinayay inuu ka tanaasulo xukunka oo uu qaato lacag dhan 140,000 oo rubi sanad walba. bilowgii kontameedyadii waxaa magaalada muqdisho heshay maamul dowlad hoose intii lagu guda jiray xornimadii raadintii 1950 ilaa 1960. 1960 markii xornimadeedii la helay waxaa magaalada muqdisho ay noqotay caasimadda dalka Soomaaliya. kunimiyo dhibahata mudho doomahalayga saaray dhinacyadaay daara hartan waxyeeladihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysowmaasoodeele. ciid mubaarak waxaan idinka soo salaamaya aan ciid mubaarak idinka soo leeyahay xeebta liido. soddonkii Ramadaan ayaa bulshada reer muqdisho si nabad ugu soo dhammaatay oo ay sulmanaayeen. halkan aan taaganahay waa xeebta liido. dad aad u fara badan ayaa markaasi ku soo qulqulaya waqti xaadirkan aan joogo. waqtigii Ramadaanta aad bay u yaraayeen dadku inay yimaadaan maadaama ay ahayd soon dibna u ahayd in dadku ay halka isugu yimaadaan. laakiin maanta waa maalin ciida oo farxada oo dadweynaha reer muqdisho si weyn ugu ciidayaan. muddo 30 sano kadib ayaan muqdisho imid. aad ayaan ugu faraxsanahay in aan dalkaygii ku soo ciido oo ku soomo waqtina la qaato. sidoo kale waxaan barnaamijyo idinka diyaariyey oo aan idiin hayaa deegaanka marka cadday minanaw cismaan ninkii moodaa munaafiq waaye afgooye. sidoo kale waan tegey oo barnaamijyada idinka soo diyaariyey. magaalada muqdisho aan ku suganahayna barnaamijkiisii ayaan wadaa. waxaan jecelahay inta aan ku suganahay magaalada muqdisho inaan la qaybsado suxufiyiinta iyo dadka ehelka u ah saxaafadda inaan ogaado bal hadda duruufaha ay ku shaqeeyaan. aad baan u mahadsantihiin dhammaantiinba. waxaan rajaynayaa sannado badan inaad nabad iyo caafimaad ku waartaan bulshada reer muqdisho oo muddo fara badan dagaallo iyo dhibaato la daalaadhacayay. sanadkan sanadkiisa ayaan idin rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer. waad mahadsantihiin. guulaysta.
jidin fadhede injirina jale makoito Somali Cinema muqdisho 2021 waxa ay la jaanqaadaysaa caasimadaha adduunka waxaa ka socda dhismayaal aad u qurux badan hoteelo qurux badan ayaa laga dhisay caalamku isha ayay ku hayaan waxyaabaha ka socda magaalada muqdisho 30 sano kadib magaalada muqdisho iftiinkeedii ayaa dib u soo laabtay ganacsigii waxbarashadii dhaqdhaqaaqii iyo dhammaan arrimihii bulshada kor ayay u sii kacayaan dalxiiskana dadku aad ayay ugu qulqulayaan goobaha quruxda badan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dukumentiga aan ugu talagalay magaalada muqdisho iyo taariikhdeeda anigoo cabsana shibinay la socodsanayay dib intaan u kulmi doonno haddii ay baraali ka noqdo waqtigiisa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo Somali Cinema